dan nooma aha khilaafka Puntland iyo federaalku marka waxaan u baahnaa inaan ka baxno sidaan uga bixi lahayna bismillaahir rahmaanir rahiim daawadayaal ku soo dhawaada taxanaha martisoor qaybtii saddexaad oo uu marti ku yahay wasiirkii hore ee dekedaha iyo waxbarashada ee Puntland Axmed Saciid Nuur ayaanu bilaabaynaa macallin wasiir mar kale soo dhawow Puntland iyo federaalka ayaan qaybtan saddexaad ku gorfeynaynaa dawladihii Puntland soo maray Cabdullaahi isaga Maxamed Caadi عدم موسنا دينك عبد الله دريو ديسي بوها وتاجيري إن دولة فدرال كاي في الصومالية حمر تكتو وحي كدم به فرولا اسكو ما في عنين فدرال كاس يديني ندي وابا وجيد بقى Puntland يا فدرال كا محيتها واحد أبضاً أساس كا مركز تا لبضاً إن عليه اسكو فهم هواية بسم الله الرحمن الرحيم أولا وما سنتها أنا ورطة عز الله هاي صوماليا مركز فيرسو dawladnimadu horta waxay ka bilaabataa waliya social contract his bulsho nidaam federaal la qaatay nidaamka federaal magac ahaan baa loo qaatay laakiin ilaa hadda dastuur federaal ah dalka Soomaaliya ma yeelan sababtu u yeelan waayeen ilaa hadda waa arrin mowduuc kale laga hadli karo laakiin aniga waxaan isleeyahay sal waxa u ah Puntland oo si federaalka u aragtaa oo maaragtay laga yaabo ama dastuurka iyadoo ay dhigatay oo ka horeeyay kan federaalka waxa ugu qoran ha ahaato ama ninka madaxweynaha marka meesha jooga wax soo shaqsiin iska dhaadhiciyo oo personal style-kiisa ha ahaato ama interest gaar ah oo markaas soo istuso ha noqoto ilaa Soomaalidu moogtay inuu sembiri waxaan nahay dad yani personal impression-ku marba saameyn buu ku leeyahay wax walba qofku soo fikiraayo markaan waxaan leeyahay dastuurkaas asal u ah Puntland oo markii hore federaalka intaan la dhisantay soo aragtay xoogaa iyadoo inay baalkii ahayd nin qab weyn iyo nin aan u qabin way Soomaalidu tiraahdaa iyo xamar oo soo aragtay dawladdii federaalka ahayd waddanka mas'uulka ah inay tahay xoogaa halkaas isfaham waa baa ka jira aan waxaan leeyahay wax loo baahan yahay ma aha waxa loo baahan yahay dalkan u baahan yahay ma aha dalkan waa inuu helaa horta constitution isku raacsan markasta oo doorasho ka jiro federaalka ay xamarna dadka madaxda laga dhigayaa waxay yiraahdaan sanadka u horeeyaan dhameynayna wadanka dastuurka haddana waxa arkaysaa iyadoo wax kale iskaga mashquulsan yahay markaan waxaan leeyahay arintaas sal oo ah wixii lagu heshiis yahay oo marka la eego dhinacyo badan baan jirin marka la eego xagga khayraadka qaybsigiisa marka la eego xagga cashuuraadka maaliyadda waxaas alleelay waxaan arkay wax lagu heshiisiyay xilliga Cabdullaahi Yusuf Talgareey murna uusan ka jirin arinta immigration-ka iyo baasaboorada wax walbana saas loogu heshiin karaa yaanu ma aqaan meel wax kala deeyay waxaan u leeyahay waxa sal u ah arintaas dastuurka la dhameystirin isqa qabsi iyo buuq wajiraya mid kale waxa weeye mindset-ka dadka fiiri dadka bani'aadanka ah qofka bani'aadanka ah oo mas'uulka leader-ka ah waxa la mindset waxa la yiraahdo mindset waxa weeye qaabka aad u fikirayso hadii waxa loo baahan yahay yani interest baa jira isdiidaya marka interestka isdiidaya ama heer federaal ha ahaado ama heer Puntland ha ahaado waxa la rabaa dadka madaxda ah oo Soomaalida ah inay waxa kan dialogue ka sameeyaan oo ka wada hadlaan oo si markaa maslaxad ugu jidho oo win-win situation ah oo maartay dhinacyadii ama afkaarihii iska soo horjeeday lagu heshiisinayo oo meel xal isugu keenayo consensus waxa yiraahdaan consensus kaasaan iyo Soomaalida ka maqan waxaan rabaa inaan ku qasbo adoon waxa rabtaa inaan ku qasabtid ma shaqeynayso waa inaan tamiis fariisano aan xal raadinaa wixii ka horeeyay 2007 waxaan akhriyay maalin wad qoraal u qoray مسؤولك مالنتي لو يتكتجين وتود الصومالي وفهد ياسين وبنتلان الجزيرة كقرية وحكوت المامية شبه الانفصالي معمول كله قلنا قصد وكونفدرالسي وكله يجي مركي حلقة قبتين أو مسؤولين تدلك وكمان نقضي فهد ولا بكون تضبيط وحي كدم بينه حريق بنتلان فدرال كوميش وأحمد بوبتي حد مدحوينها عصب واد أوتشيدا وحسن الشيخ ومدك وبنشوقي بنتلان رماه شدالك وكلا هبين أركيس ورصحافة دي دولدين وكسو صارتي إسهيسة كاس
ama isfaham waaga Puntland iyo xamar ama Puntland iyo dowladda federaalka ah Puntland ku faa'iiday ishaysid iyo khilaaf cidna kuma faa'iido Puntland kuma faa'iidin federaalka kuma faa'iidin wax u ah dadka Soomaaliyeed ma aha markaan ku sheego laakiin waxaan qabaa waxa loo baahan yahay dadka leaderska ah oo Soomaalidu sidoo niyo leaders fiican wali ma helin politicians way dadku politicians iyo leaders waa kala labo vision ma jiro badan saasa waxa loo baahan yahay waxa weeye waxa wax la xalin karo way Puntland waxay rabto raadinayso iyo aragtideeda xal baa loo heli karaa federaalkuna wuxuu raadinayaa xal baa loo heli karaa maamulada kale xal baa loo waxaasna waxa sal oo asan ku sheegay dastuurkaas oo laga heshiiyo laga wada hadlo hadda fiiri 15 qodob kaliya way wax dhimanay wax kale waa dhan yihiin 15 ka qodob intay isugu yimaadaan madaxda Soomaalidu inay isla meel dhigaan baa laga rabaa mana aha adigu inaad tiraahdo suuf iyo xanja meel ugu dhigan waxa aan doonayo hadaan waayo gow male ma shaqaynayso waa inaad hadaad waxa aad raadinayso weydo waa inaad plan B waa inaad leedahay alternative waa inuu jiraa waxa la rabaa in xal la helo marka waxa weeye inaga problemkeena ayaa waxa weeye madaxdeennii ayaan xalkii raadinayn oo anigu aragtidaada iyo aragtidayda haday wadan ku sheegay in tamiis isugu nimaano isla fariisino xal in wadaqanciyo raadino baa loo baahan yahay inaan isla joogno lama baahna taas marka ayaa ina ka maqan dastuurkaas asal oo ah anigu waxaan qabaa waa meelaha aynu ka boqno laakiin saan ku sheegay khilaaf iyo isqabqabsi iyo isjiidjiidad Puntland kuma faa'iidin federaalna kuma faa'iidin sidan cid ku faa'iideysa ma jiro aqoonyahanada qaybtooda waxay ku doodaan scenario-gan ah markasta in Puntland iyo dowladda federaalka kala aragti duwan yihiin waa la abuuraa madaxda Puntland baa abuurta si dadka loogu jeediyo oo dadka loogu mashquuliyo maadaama Puntland intii xukuumadda soo mareen ay u jeeday dhaliilihii hadda meelihii ay ka gaabiyeen waxa la yiraahdaa dad baa ku dooda noocaas in dadkan lagu mashquuliyo federaalka baynu iska soo horjeednaa goboladii maqan yihiin dadka ay u jeedid adeegyada caafimaadka iyo wax dawladdu dadka ku celiso adeega dawladdu ay dadka siiso inay iskuuladooda private ku dhigtaan caafimaadka ay u jeeday heer ku joogo arintaas Soomaaligal ma hadoodaas dawladda Soomaaliya dhanba bilow ah federaalka raxiis waa bilow oo hadda federaalku hadda awood iyo dhaqaale ay wadanka dhan waxa ku siiyaan oo baahiyaha jira ku kala gareeyaan ma hayaan meeshan waxa weeye anigu waan ku sheegay sartu waxay ka qoransan tahay arinta dastuurka haddaan wax lagu heshiin oo aan waxaan lagu heshiin xal sakariyo marna la filmaayo anigu hadda eedna federaalkana ay saari maayo Puntland ay saari maayo waxaan qabaa anigu waxa weeye dan nooma aha khilaafka Puntland iyo federaalku marka waxaan u baahnaa inaan ka baxno sidaan uga bixi lahayna dadka madaxda oo leaderska baa laga rabaa ama federaal ha joogeen ama Puntland ha joogeen hadda waa u jeedaayo khilaafyadu hadda Puntland kaliya ma aha maamul goboleedyada kale hadda wax laga sheegay waga hore Puntland kaliya la sheegi jiray marka waxa kanu waa wax core of the problem waa dastuurkaas la hagaajiyo madaxda ay soo timaado hawada fariisato wixii lagu heshiiyo markaan cidii hadhow dhac marta tayada la arkaya muuqata laakiin dastuurkaas walaalo aan dastuurkaas uusan jirin qof walba soo wax u jecel yahay buu maaragtay wax u dhigan haya gabagabadii aan joognaa madaxweynaha Puntland ee hadda xilka haya Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ka tartamay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya arintaas oo kulahay inuu madaxweynaheenu isagoo madaxweynihii Puntland xildhibaanada halkan soo baxay wixiina ku eedaysay sida loo maamulay xagga la tago xaq buu lahaa inuu tartamo xaq buu lahaa sharci u diidana ma jiro u diidana inuu tartamo laakiin anigu waxaan ahay dadka u advocate gareynaya mustaqbalka qofka madaxweynaha Puntland ka noqonaya hadduu rabo inuu federaalka inuu iska casilo madaxweynaha Puntland xilka madaxweynaha Puntland ma madaxweynaha Puntland kaliya wasiir hadduu yahay wasiir baa tartami kara mogta wasiir baa tartami kara agaasima tartami kara waa inuu xilka iska dhigaa dastuurka Puntland waa in lagu qoraa qodobkaas conflict dastuurka ma wada dastuurku hadda waxa uu furan yahay 10 sano in mar la eego dib loo eego dastuurku mugta aad quraana ma ahay adduunka qodobkaas dastuurkan in 10 bari ba 10 sano dib loo eego ha marka dib u eegista hadda la sameeynayo haddii maalinsan hadda 2024 dawladda dhalato
dib u eegis in lagu sameeyo noosada dastuurka 3 bilood u horeeya dawladdaas ama 6 bilood u horeeya waa in Puntland dastuur cusub yeelataa iyadoo lagu saleynayo experience-kii khibradihii maaragtay la soo arkay anigu waxaan qalay qabaa una advocate gareyn doona in lagu qoro qodob oranaya qofkii Puntland xil ka haya oo mas'uuliyad ka haya ama madaxweynaha ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama mid ka hooseeya ha ahaado hadduu rabo inuu federaalka xil ka qabto waa inuu xilkaas ka dhigaa taasna waxa weeye wax la conflict of interest waa jira conflict of interest kuwa federaalka xilalka haya hadii Puntland soo aadayaan iska tiriyay oo dee qasab in federaalka lagu qoraa qof waxa weeye ma وين لا يلا conflict of interest adoo meel joogo shaqo dawladeed haya inaad awoodii aad haysay resources ka haysay mobilize garaysan xilka la ku raadsato qalad weyn weey waa in taas laga ilaaliyaa hada waxa federaalka waa ku qoran tahay qofkii rabo inuu federaalka rabo inuu sharaxo waa inuu xilka iska casilaa federaalka ku qoran tahay dastuurkiisa qiyaasaya haduu wasiir rabo inuu madaxweynaha sharaxo waa inuu casilaa kaliya madaxweynaha marka xilka jooga baan loo ogolayn inuu isagu waa inuu dasiihaye ahaada inta laga dooranayo بدل لحيت aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wasiirkii hore ee waxbarashada iyo dekedaha ee Puntland Axmed Saciid Awnuur oo taxane 3 qaybood la ah barnaamijka Martisoor aan ka doonay aad baa mahadsantahay macallin wasiir aad ku mahadnay shukran jasiilan ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam